sagaal sano iyadoo dawladda shibilka ay jirto yaa kacaankii wuxuu sameeyay inqilaab horta mushkiladii ugu horeysay dalka waxay bilaabatay markii inqilaabkaasi dhacay dadkii oo aan dawladnimadii u bislay wuxuu laalay dastuurkii dalka dadkii aqoonta lahaa wuxuu xiray wuxuu cayriyo ka dhig dad waxa caradii yimid kacaanka la jaan qaaday durbaan baa la tumay wixii dadkii aqliga lahaa wixii uu cuntami waayeen warkadaay meesha wax ku wadaan sax maaha wixii waxay dhaleen in culimadii la laayo waxay dhaleen wadanka shuuciyad in la keeno waxay dhaleen dadkii kacdoon dadkii dhibaatadii inay xamili waayaan in kayuu la geliyo aakhirkii dagaalkii 77kii oo aan laga fiirsan in la galo waxa aakhirkii waxay dhaleen kacdoon xaq ciidamada ah inuu dhaco oo la yiraahdo war meeshan wax lagu wado dalkii dadkii ma anfacaysa laga qabto inqilaabkaasi waa tuu dhicsoobay dad baa lagu laayay arrimahaasi markay dhaceen dawladda maxaad siyaad bar marka deegaamo iyo gobolada target u ahaa gobolada koowaad oo targetka u ahaa waxay ahaayeen gobolada Mudug Nugaal iyo Bari oo markaa u aaneynayay inay ahaayeen dadkii markii hore ama SYL saameynta ku lahaa ama dawladdii lixdamaadkii dadkii hormuudka ahaa inay u badnaayeen goboladaas ka soo jeedeen wuxuu u arkay cuqdad wuxuu qabay marka ah isaga iyo saaxiibadiis inay dadkaasi isbedel sameyn karaan dagaalkiis inqilaabkiina dadka garwadeen ka ahaayeen jabhadii SSDF baa furantay jabhadaas markay furantay dawladda maxaad siyaad bar cadaadis badan bay waxay saarnay goboladan saddexda aan ku sheegay qorshahaas waxa la xirxiray nabadoonnadii waxa la xirxiray ganacsatadii waxa la xiray aqoon-yahankii waxa la xiray qof kasta oo wax la bidayay waxa la xirxiray ardaydii yar ka ahayd dhibaatadii waxay gaadhay qofkii miyiga deganaa oo ariga kontonka haystay irtiga labada haamood dhibaatadii dawladdu ay sameynayso waxay ugu tagtay xiradiisii ceelkii baa laga oomiyay xoolihii baa laga dhacay isagii baa la dilay pressure waxa la saaray wixii wax lagu muquunin karo dhan arintaas marka waxay ka dhalatay markii dambe markii jabhadii tabaraysatay golihii saro kacaanku waa fariisteen intii talada gaarka ay ka dhaxaysay waxa la yiri see wax ku xallin karaa waxa la isla qaatay in isimada goboladan Mudug iyo Nugaal iyo Bari in iyaga laga bilaabo pressure ko iyaga gacanta lagu soo dhigo si gorgortan loola galo dadka maqan oo dhaqankaas gumaysiga iyo dawladaha ay kulligooda isticmaali jiray hadii qof wax biyo waxa casabadiis yaa la soo qabtaa marka waxa lagu la gorgortaa waxa la yiraahdaa ama kana la dilay ama imow isla Cabdilla marka gobolka Mudug buu joogay dabcan gobolka marka ugu dhow oo culayska ugu badan ka jiray ama jabhada laga gali jiray baa ciidamada la soo diray marka waxa la yiri waa inaad soo qabataan isla Cabdilla marka wuxuu joogaa meel la yiraahdo Malaas oo degmada Jariiban kamid ah oo marka barkada iyo deegaan ay ku lahaa ciidankaas waxay yimaadeen Nugaal oo Buurtinla iyo Mudug sahamay dirsadeen isla Cabdilla meesha lagu ogaaday dadku wax kuma kala qarsoonayn xog baa la helay marka in ciidamadaas ula jeedka ay u socdaan ay tahay inay islaan Cabdilla soo xiraan amarka ay wateen wuxuu ahaa haday ku adkaato qabashadiisu xataa inay dilaan sideetankii iyo labadii 81koodii ima kala saxsana hadda 81kii inay ahayd iyo 82kii inay ahayd ya ciidamadaasi waxay maalinta dambe weerar ku soo qaadeen magaalada tuulada islaamku deganaa waxa dhacday ciidankii caawo kale markay yimaadeen Buurtile in dad ka war helay ehelka ahayd in ciidankaani u socdaan qorshaha ah in islaan Cabdilla la soo qabto nin baa la soo diray la yiraahdo Casayr Maxamuud Qaas ninkaas soo kacay wuxuu yimid guuro wuxuu ku soo galay Malaasle islaamkii ragii la joogay buu u yimid wuxuu yiri qorshahaas jira ciidankaas aan yimid ilaa barina waa idinku soo aaday sidaa darteed islaamka meesha laga saaro marka ciidan badan islaamka lama joogo
gobolkana waxaa degan oo jooga oo ku firiqsan ciidamo barayshar ku haya dadka dhulku biyeeriyood buu ahaa barkadihii bay dadka ka oomiyeen ceel riigana waxa ugu dhawaa ceelasha markaa jiray meesha la yiraahdo Balibusum iyo Jiriiban biyo kale markaa wadanku ma lahayn oo riigoo la aado riigagii na waxa qabsatay dawladooda awalba haysatay barkadihiina ciidamay dhigeen ciidankaas markii uu yimid Malaasle meel Malaasle u jirta taqriiban 15 kilomitir iyo waxay kula kulmeen laba oday oo isla family-ga islaamka ah labadii oday baa la wareystay nin baa marka wuxuu sheegtay jifiyaha kale oo aan markaa dawladdu bareysharka ku hayn oo deegaanka deganaa nin askarti kamid ah gartay oo wuxuu yiri hadaad adigu reer hebel noqotid hebel oo reer hebel noqotid yaa Axmed Xasan Bidde noqonayo Axmed Xasan Bidde waa Yaasiin Nuur Xasan Bidde adeerkii odagii marka wuxuu yiri maandho hadaad garatay sida kudi inaan Axmed Xasan ahay kudi laba nin bay halka ku dileen oo laba oday ah odayaasha markay dileen dadkii qayladhaanti baa gaadhay cul baa la isu diyaariyay islaamka rag badan lama joogin oo tuulay meeshu iska ahayd raggii islaamka la joogay 6 nin oo 4 kamid ah marka ay shaqaale dawladeed ahayd yaa dagaalka meesha ku qabsaday ragga waxa kamid ahaa nin la oran jiray Kootoma Maxamuud Dalmar waxa kamid ahaa nin la yiraahdo Daab Jeerin waxa kamid ahaa nin la yiraahdo Dhulqas waxa kamid ahaa nin la yiraahdo Muuse Cabdi Xoosh rag adugu 7 nin iyo 6 nin midkood yaa dagaalka ku dhintay difaaci Islaan Cabdille dagaal adag baa meesha ka dhacay islaamka meesha waa laga saaray islaamku nin daana waa aha nin culusna waa dhulkuna waa dhul adag oo qarfa ah Malaaslaadu waa taqaanaa wasiir meel magaalada dhabarkeeda dambe ah oo buura ee islaamka loo saaray geed garasa yaa la fariisiyay halkaas lagu tashaday waxa la go'aansaday inaan islaamka isagoo nool inaan nimankaasi gacanta ku dhigin rag adigu 20 oo reer miyiga meelaha ka soo yaacay ee ragii magaalada la joogay go'aankii ay qaateen wuxuu noqday inay ciidanka u jilib dhigaan dagaal baa dhacay ragii laba qaybood baa laga dhigay qaybna waxa la raacda reeb noqdo ciidanka naga difaac naga mashquuliye qaybna islaamka loo dhiibay waxa la islaamka xay waxa dhacday islaamka marka dhulku waa dhul adag oo qarfaa oo buura oo dhagaxo oo hawda markuu muddo soconayay socodkii baa ku adkaaday waxay sameeyeen ragaasi bareelay u goosteen tiirar iyo adigu alaaba inta u sameysteen islaamka tunka lagu qaad waa la qaad hameenkii meel xarfa iyo u dhaxaysa Malaasle yaa lagu leeyahay adigu cidii miyigo meelaha deganayd baa awr iyo wax laga keenay awr biyo rara iyo awr kuuba iyo waxba la diyaariyay hameen iyo maalin dambe islaamku jidka ku sii jiray oo xuduudda Soomaaliya ilaa Dugob laga gaarsiiyay waxa jiray xilligaas ciidamo SSDF oo ku dhex jiray gobolada Mudug iyo Nugaal sidaan sheekada ku hayo ciidanka ugu dhawaa oo raadiyaha watay waxay joogeen soonahan Xaliimo Dheer iyo eeriyadan Nugaal waxa oday u ahaa nin dhintay Allah u naxariisto Cabdi Gaani la oran jiray dabcan adiga markaa warbaahinta SSDF baad waagaas adigu kamid ahayd warbixintii bay heleen waxay la hadleen niman kale oo iyaguna soonihii Malaasle iyo hawdka u dhaxeeya ku jiray oo jabhada warkii wuxuu gaaray taliska dhaxo jabhada halkaas waxa laga soo diray marka ciidan hal urura si islaamka ay rag la socday loo badbaadiyo alxamdulillah islaamkii halkaas uu ka cid galay ciidamada Soomaaliya intii uu islaamku hawada ku jiray waxa dalka lagu sii daayay ciidan tiro badan diyaaradahan wax sawiro oo xogdoonka ahaana hawada lagu sii daayay waxa igu maqaalaa duuliyayaashii xilligaas diyaaradahaas waday qayb kamid ah
inay arkeen islaamka iyo raggii la socday laakiin aysan xogta dawladdu u gudbin sababtoo ah hadee dadku dawladda waa lagu wada jiray waana laga jiray waxyaalaha qaar koodna qofka dadka qaar baan damiirku siin karin marka hadda inaan hebel iraahdo bayloodkii xogtaas sidaas sameeyay looma baahna laakiin anigu isagoo ka sheekeynaya labadii dhinacba iyagoo ka sheekeynayaan la kulmo meeshii ku arkay qaabku sidoo ahaa qoladii kalena ay ka marxaanti fureen waxa islaamku markii dambe markaa wuxuu galay Itoobiya galay islaamkii Itoobiya galay dib u galay markii dambena Harar buu soo deegay muddo dheer ku maqnaa ilaa iyo burburkii dawladda Itoobiya ama tii Soomaaliya marka kadib baa waxa bilowday dawladdu inay si bareer ah gobolladan dagaal uga samayso waxa la gaaray jabhadu waxay waday saddex qorshe isku dhaxwad mid wuxuu ahaa inay dawladda ku samayso ciidamada barnaamij la yiraahdo ku dhufo ka dhaqaaq midka labaadna wuxuu ahaa inay ciidan iyo dhaqaale ka helaan iyo wacyigelin bulshada dhexdeeda kan saddexaadna wuxuu ahaa inay wadanka dhexdiisa xogta ka jirta ay helaan gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal waxay ahaayeen meelihii ugu badnaa oo dhibaatooyinka ugu badan ka dhacay waxa jirtay niman dhalinyaro oo jabhadii inay hameyn weerar ku soo qaadeen saldhiga Buurtinle nin baa ka dhaawacmay ninkii dhaawac ahaa waa la qabtay gaari TM dabada loogu xidhay ninka ilaa naftu deysay waxa lagu jiidayay laamiga isagoo nool arxandarrada dawladdu ay samaysay bay kamid ahay ninka bidaan baa la yiraahdaa hadeer waa la yaqaanaa meeshaan ilma adeer agagaarkeeda yu ku xabaala meedkiisu xataa muddo halka ayaa loo diideen in la xabaalo markii dambe dad reer miyiga aasay barkadihii baa la sumeeyay dhulka la burburiyay barkadaha la burburiyay tuulada islaamku deganaa kamid ahayd waxa kamid ahaa Balambal waxa kamid ahaa Salax waxa kamid ahaa Dogob iyo Godob yar iyo dhulka ciidka oo dhan waxa kamid ahaa ceelashii biyuhu dadku ay ka cabi jireen oo gacanta ahaa oo iyaga laftooda qaarna la sumeeyay qaarna dadkii inta ciidan la dajiyay wixii la rabay lagu sameeyay anigu goob joog waxaan u ahaa iyadoo ceelka Balbusle geelal aan ka yarayn 30 kadin inta u soo arooreen la yiri geeli aan qoriga keenin ceelka laga waraabin maayo oo hala irmaana oo 15 20 soo qaday inta dib looga arooriyay in la aaday kaalmoona iyo halka dhibaatada silca dadku qabay silc ma ahayn dadka reer miyiga xaadir waxaan ahaa nin la oran jiray Jalawaaq Maxamuud Magan nin reer miyigu ahaa isagoo maalin meel maraya oo ugaar doonaya yaa waxa la kulmay ciidan Balbusle u soo socda inay qabtaan bay dabceen uu dagaalamay nin buu ka dilay ninna waa ka dhaawacay isagiina waa dilay Balbusle keenay magaalada saldhiga biliiska Iridiis yaa gaariga meydkiisa lagu wada soo taagay ninkii taliyaha ciidanka ahaa yaa askari kor saaray anigu xaadir baan ahay intuu la hadlay wuxuu yiri ka soo tuura gaariga meydkiisa mahbarka cag baa lagu soo dilay dhulku ku soo dhacay gafuurku caka saar isagoo fiirinaya dadka damiirkiisu bal sida uu noqdo habeenkiina odayaashii iyo dadkii ragarboodka ahaa oo magaalada Balbusle joogay inta la soo ururiyaa meel la isugu keen ciidan baa lagu xeer dabcan waxay ka baqayeen ciidan jabhadii in meelaha cid ka joogto arbush kale iyo wax lagu sameeyo waxyaalahaas oo dhan baa soo dhacay cadaadis dawladdaasi waxay ku tala gashay inay dadka inta muquuniso ay khasab ku ogoleysiiso waxa ay wadatay oo dulmiga ahaa oo qarandumiska ahaa oo Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay wadada ay u socotay inta laga leexiyay wada kale loo duulay